سؤالي dhalinyarada waa su'aasha mas'alada ku saabsan ninku inuu xaaskiisa naaska ka nuugo aan kala qaadno طبعا waxa loo sameeyo nacfi iyo caana lagama raadsadee waa nooc istimtaaca kamid sooma waa nooc istimtaaca kamid marka hadii uusan wax caana ka nuugin laakiin uu naaska afka geliyo wax caana si uusan ka nuugin markaasi inay banaan tahay shaki kuma jiro maxaa yeelay axaadiista tilmaamaysa istimtaaca iyo rag iyo dumarka gobasha galmada ka hor waxa dhex mara axaadiistaasi ma aynan diidin cumuumkeedana waxa laga qaadanayaa inuu bannaan yahay wax sharcan diidayana ma jiro oo nooc istimtaaca iyo mubaasharada iska bannaan ka mid waa suurada waa hadduusan caana ka nuugin suurada labaadi waxa weeyaan inuu caana ka nuugo laakiin uu iska tufo caani markiisa afkiisa galaan iyadana iska tufo iyadana way bannaan tahay wax ishkaalana ma leh suurada saddexaad waxa weeye inuu caana ka nuugo caanihiina liqo sooma ninkaasi caruur ilmihii buu qadiyey marka kaas suurada iyada ah oo markii intuu caana naaska ka nuugo caanihii uu liqo suuradaasina sida raajixa ah way bannaan tahay jamaahiiru ahli cilmi waxay leeyihiin wax ba'siya ma leh sababtu maxay tahay sharcan wax diidayaan jira haddii la yidhaahdo soo ma dhici karto caanahan uu islaanta ka nuugay in ay xurmo keento uu noqdo sidii ilmaheedii oo kale uu noqdo jawaabtu waxa weeye maya lianna jamaahiiri ahli cilmi waxay qabaan marka naas caana laga nuugay uu keenayo xurmo uu keenayo shuruud bay leedahay shuruudana axaadiista tilmaantay waa goorma waa inuu ilmuhu yar yahay oo caanuhu jidhkiisa wax tarayaan 2 sano iyo wixii ka yar caanaha uu cabayna lafihiisa kobcinayaan jidhkiisa nafaqaynayaan waa ilmo yar markaasaa wuxuu nuugay ay keenayaan taxriim keenayaan marka labaad shardiga labaad nuugmada uu nuugay waa inay 5 nuugma noqoto sidii xadiidkii Caaisha tilmaamay 5 goor intuu nuugo mid walba intuu afka gashado nuugo inuu kala baxo isagoo sidiisa u daayo ilmo haddana ku noqdo sidiisa u daayo haddana 5 goor markuu saa u nuugo ayay xurmadu iimaanaysa sooma tayib ninkan weyn marka ilmo yar ma aha sooma mar hadduusan ilmo yar ahayn caanaha naaska uu ka nuugayo saamayn kuma samaynayaan jamaahiiru ahli cilmi baa sida qaba wax saamaynay ku samaynayaan ma ay jiraan xadiis baa jira Saalim mawla Xudayfa oo guri ku noolaa oo gabadhii ajnabina xaafadda ka ahaa xaafadii ku rafaaday kadibna neeyo gabadhii wuxuu ku yiri xadiiska Bukhariga nuuji buu ku yiri si aad xaraam u kaga yaani wax si uu محرمكو ugu noqdo xadiiskaasi waxay leeyihiin ama muxuu ahaay xaaja keentay oo xaaja khaasa ama adu sibay u awilayaan laakiin jamaa'iru ahlul ilmi waxay qabaan ilmaha yarka bay caanuhu saameeyaan ee ninka weyn ma saameeyaan sidaasina waa madhabu saxaaba ridwanullaahi calayhim Abd Razzaq fi al-Musannaf wuxuu ku keenay Abdullah ibn Mas'ud ma ninba xaaskiisi caanihi ku istaageen naaskiiba caanuhu ku istaageen markaasuu intuu ka nuugay buu tufay si caanaha naaska ku istaagay uga soo saaro ninkii waa shakiyay Abu Muusa al-Ash'ari u tagay war islaantii baan caanihi ka soo saaray wal waran buu Abu Muusa marka wuxuu ugu fatwooday si buu su'aash jawaabta ugu dhigay waa soo tago Abdullah ibn Mas'ud buu yimid markaasuu yiri niyow tana igu dhacday Abu Muusa aan u tago sidan uu igu jawaabay ayadoo warkii la hayaba Abu Muusa yimid markaasuu wuxuu ku yiri war Abu Muusa war ninkan ma ilmo yar baad mooday ya atadunnuhu radii'an buu ku yiri waxaad u malaynaysaa ilmo yar oo naasnuuga marka aad leedahay yaani wax weeyaan aad leedahay
wixii aad nuugtay waa ku saameeya marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim madaahibtooda cumar cabdillaahi ibni cumar dhammaantood aahaartu waa ka sugan tahay marka wax dhiba male waa nooc istimtaaca ka mida jaa'is ah oo ah bannaan wax saamaynayna aan ku samaynin xaaladdaa dambeo caanaha inaad liqda ah baa culimmada qaarkoodii karaahaysanayaan oo fiican in laga fogaado maadaama khilaafba ku jiraba khuruujan min alkhilaaf in laga fogaado way fiican tahay laakiin ma xarimi karno wallahu aclam